ilaha ugu muhiimsan ee dalkeena waana muhiim in loo helo dawo iyo daryeel caafimaad oo joogto ah iyada oo taa laga duulayo howlwadeenada wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa gurceel ka fuliyay qalliin dhif iyo naadir ah midka oo lagu sameeyay neef geel ah oo 2 bil koor oo ku dhex dhintay uurjiifkii uu siday qalliinkan oo saacad iyo bar qaatay ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay waxaana neefkan geel ah lagu sameeyay qalliinka loo yaqaano C-section mulkiilayaasha neefkan ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda Galmudug kaga mahadceliyay daaweynta iyo badbaadinta neefkan iyaga oo sheegay in xaaladan oo kale ay ku wayaan 100 neef oo geel ah. Abdullaahi Maxamed Siyaad ayaan hasha waxaan ka soo qaaday meel la yiraahdo Itoobiya soo saaray xabuur la yiraahdo waan soo gaari saaray meeshaan hadana degmada Gurcalagteeda aan keenay meeshaas ma qalliin loogu fuliyay qalliinkaas oo u fuliyeen wasaaradda xanaanada xoolaha Dr. Ibrahim iyo Dr. Sahro ayaa meeshaas qalliin ugu fuliyay waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad ka xaaladiisu ilaa muddo 2 bilood ay xanuunsaneed markii hore u fooleysay ka bacdi fooshii ka tagtay waa xanuunsatay ayadoo aad iyo aad u lif daran soo qaadnay ayaan meeshaan keenay haddana waa fiican tahay Ilaahay u gargaaro qalliina meeshaas lagu fuliyay ay mahad iyo amaal celin ha ka siiyo ayadoo aan haatan wax lacag ah nala ku xujeeyay iyo wax nala ka qaada aysa jirin hashiina ay ka badbaaday oo hadda ay aad iyo aad u wanaagsan tahay haddii intaa waan uga amaal celinaynaa waan uga mahad celinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug Gurceel dadku haw keensadeen xoolaha aad iyo aad ay ugu fiican yihiin hashi waa daaqaysa hadda biyaheedii saaka waa cabtay waana qurxoon tahay ilmagiina waa laga soo bixiyay asagoo 2 bilood waqti yahay ayaa laga soo bixiyay oo laga qalay kelida agaasimaha shaybaarka degmada Gurceel ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda Galmudug ahna dhakhtarka fuliyay qalliinkan ayaa sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug ay xilli waliba diyaar u tahay garab istaaga iyo la dara noqoshada xoolo dhaqatada Galmudug. aad u jeedaan waa neef geela muddo 2 bil ka hor ah ilmihii ay ku dhex dhinteen waqtigaasna meel fog joogay runtii aan daryeel caafimaad helin laakiin waxa Ilaahay mahadiya in neefkii deegaankii dheer laga keenay xarumihii caafimaadka xoolaha dowlad goboleedka Galmudug la soo gaarsiiyay maantana kiiskaas aan fulinay oo qalliinkaas aan ku sameeyay cunigi orchiefka arkaysaan oo 2 bil ka hor ku dhex dhintay aadna runtii aad dareemayso inuu oo hataa neefku minkii uu ka baxay calooshii caad wuxuu iska dhex yaalay gudihi oo waqti dheer aan neefku minkii dilacsanay waxa la dareemayay marka neefkaanu in oo appetite-kii dhama soo jaray xaaladiisuna ay ahayd runtii xaalad aad u daran kuna dhawaay neefku runtii inuu arrimahaas u geeriyoodo waxa farxad noo ah in dadkii xoolo dhaqatada ahay ay fahmayaan nidaamka xanaanada xoolaha dadkeenu awal waxay ahaayeen xoolo raacato balse hadda waxay moodaan inay soo noqonayaan xoolo dhaqato guudna wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Galmudug waxay u diyaarsan tahay inay howl walba oo xoolaha ku saabsan ama neefkii dawada u baahan yahay wala daweyna haddii neefku uu dawo baashiisa ka gudubto qalliin yahana wala qala wasaaraddu marka guud ahaan waxay u diyaarsan tahay in howlahaas xoolaha nooc walba yihiin ay qabato maadaama ay tahay wasaaradda xanaanada xoolaha ayadoona guud ahaan ay mas'uul ka tahay wixii xoolahaas quseeyo ayadoo mas'uul ka tahay. Gurceel oo dhacda bartamaha Soomaaliya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay ku nool yihiin xoolo dhaqatada ugu badan magaaladan ku yaala suuqa ugu weyn bartamaha Soomaaliya ee lagu iibiyo xoolaha midda oo ku tusaysa ahmiyadda xoolaha ay u leeyihiin dadka reer Gurceel waxaana bulshada kale ee Galmudug ay si weyn ugu baraarugayaan xilligan dhaqashada xoolaha gaar ahaan geela. Cabdinuur Ciise Qaramada Warbaahinta Qaranka Gurceel.